السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا 10 كيني اللي بيطبنات Microsoft SQL Server 2014 كاسون كسو قادن دونو إيرار كان نوعان oo soo gala version kasta oo kamid ah Microsoft SQL Server kaasoo ku leeyahay cannot connect MCHA oo ah server name-keena macnaheedu kuma baxir ma kareeb kule server name-keena ama wase waa PC name-ka computer-kan aynu ku sameeyna 10ka magaciisa weeyaan isla markaana ku leeyahay error baa jira Microsoft SQL Server error kadib kuma xidhmi kartid oo ma gali kartid databases-kii waxba ma sameyn kartid balaan isleegan hadaba error-kan iyo sida uu soo baxo isla markaana loo xalliyo aan ka soo maskareeyo aan soo kiciyo Microsoft SQL Server-ka marka uu san ugu soo baxo oo uu sida caadi ah u soo kaco Microsoft SQL Server ee tirahdo connect waxooga markaad yara sugto sikina ayaa wuxuu soo saaraya error-ka noocan ah oo kay hadii aad tirahdo dil maanta ku celceliso kuma xirmayo hadaba error-kani halkay ka soo galay isla markaana sida looga saaro aynu bareynaa halkan tagina waxaanu raadinaynaa SQL Server 2014 configuration manager kadib halkan aynu ku qoraynaa SQL Server 2014 configuration manager waa kan halkan waad ka soo kicin kartaa ama bas adigoo tagay star labada siyaabadba waad ku soo kicin kartaa programka waxa tagaysaa serviceska kadibna waxaad arkaysaa inuu halkan SQL Server gabi ahaanba stop yahay oo uu istaagay kadib right click baad siinaysaa start baad leedahay in yar ayaad sugaysaa marka uu ku saaro running all the way marka error-ku ka baxay ka dhigan tahay marka aan soo maskareynaa kadibna connect way leenahay mar kale waxaad aragtaan inuu sidii saxda ahayd ugu xirmay oo database-deena aynu gali karno isla markaana wax kasta aynu eegi karno sidaas ayaana loo saaraa error-ku noocaas haddii uu bilaabo ka soo galo Microsoft SQL Server 2014 ama wase any version kamid ah Microsoft SQL Server halkaas uu inuu jeegay 10 keeni ku saabsan habka loo xalliyo error-kaas. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.